aragti habboon daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dalkii dibadda ee SBTV oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay Muqdisho. waxaa idin hadlaya anigoo ah Samiir Cabdirasaaq Umar. qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkana waxaa ka mid noqonaya munaasabad lagu xuseeyay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee lagu qabta Muqdisho. wajiga saddexaad ee wadahadallada Itoobiya iyo Soomaaliya oo mar kale fashilmay xilli xiisada labada dhinac ka dhaxaysa meeshii ugu sareysay ee gaartay. taliska BSF-ta Puntland iyo maamulka Saciid Cabdullaahi Deni oo xiisada ka dhaxaysa meeshii ugu sareysay ee gaartay xilli magaalada Boosaaso laga cabsi qabay inuu ka qarxo dagaal u dhaxeeya labada dhinac. dowladda federaalka Soomaaliya oo joojisay duulimaadyadii Boosaaso tagi jiray iyo Puntland oo si kulul uga falcelisay talaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya. xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maanta mar kale dib u howlgelisay bangiga dhiigga qaranka. dagaal lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose. akhbaraadka caalamkan waxaad ku daawan doontaan gantaal laga riday Yemen oo ku dhacay bartamaha Israa'iil. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan intuu soconaya barnaamijka dalka iyo dibadda ee u diyaar garooba qodobadii hordhacaad ku daawateen oo faahfaahsan. waa maalinimo axada taariikhduna ay ku aastaysan tahay 15 bisha sagaalaad 2024. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad hordhaca barnaamijka ku daawateen oo faahfaahsan. munaasabado lagu xuseeyay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka sida qodoboreedkan uu ku qaadaa dhigayo wariye Abshir Baari. dhacdadan oo ah mid sanadle ah isla markaana lagu xusayo dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay malxafka weyn ee ku yaala degmada Shibis ee gobolka Banaadir. waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada heer dowladeed, majmaca culimada Soomaaliyeed iyo culimo ka socda dalka Pakistan. sidoo kale waxaa munaasabada ka soo qayb galay dad shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. ugu horeyn mashaayikhdii kalgadisaneed ee goobta ka hadashay ayaa ka hadlay taariikhda nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyagoo ku fogaaday in maantoo kale ay tahay maalin weyn isla markaana la xusayo dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. waa kuwan qaar ka mid ah oo goobta ka hadlay. koobahaaga siibin carshigaygu wuxuu u hilowsan yahay inuu taabto koobahaaga wadi bisaada carshi bin calayka gogashayda carshigayga aan ku fidiyey gogashaas koobahaaga kula soco kula titilaabso maxaa ila carshigu wuxuu u hilowsan yahay inuu koobahaaga adiga ku ximbaarsan ee adigu aad ku socoto inuu taabto. laa xawla walaa quwwata illaa billah. yaa fawza yaa fawza yaa fawza man xadiya bimasin calayh. yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inamaa khalaqtuka liajli adiga daraatay baan ku abuuray وخلقت الكل لأجلك دمان أديك دراتون لولا ما هاتين إلهي سماد عرش ما أبورن كرسي ما أبورن جنة ما أبورن مخلوقنا ما أبورن نبي عليه الصلاة والسلام لأجل جسم الله أبوري ساد درات هذا كونك كل جس سي خور يدب وحا سيد النبي عليه الصلاة والسلام سألوا درينا نعم أنت النبي النعب أو يقول الرئيس يهودا وحلنا يهودا وحنداينا خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود سو جيشك النبي منهن سو جيشك الرسول كمنهن سو يهود كماتكن غزة الله حريو فلسطين الله حريو غزة الله حريو فلسطين الله حريو إسلامك الله حريو انت قلبي ضعيفك oo maxabada rasuulka ka qadsan ilaahay hanoo hanuuniyo maxabada rasuulka inta ka qadsan ilaahay hanoo soo hanuuniyo annagana wadankeena jacaylka nabiga Allah ku arzuqo mawlidku wuxuu mataano la yahay nabadda dawladda ay ogow qof kasto ogow nabi maxamed mawlidkiisa iyo nabaddu waa mataano mawlidka iyo nabaddu soo mataano maahan nabadda iyo mawlidku soo mataano maahan horumarka iyo mawlidku soo sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bishiisa waxa bilaabeen niman zanaadiqa ah oo gaala ah in la weyneeyo marka gaaladu de nabi Muhammad hadii ay weyneeyeen
ilaahay baabarna amraba inaan weynayno marka gaala bilowday amba zanaadiqa bilowday amba shiica bilowda ma jirtee waxaa la rabaa uun xafladan weyninka badan loo qiimaha badan in lagu hor istaago taasuna shaqaymayso taariikhdaas la sheegayo faadimiyiina bilaabeenna ah haddan laga bilowdo ilaa qiyaamaha laga gaaro in la soo caddeeyaa la rabaa la heli maayo waa been cad been bidaar la wey waa in la keena waxaan leenahay marka ikhwaani fillah idoo culimo waaweyn iyo mashaayikh ajillo waaweyn iga dambayso oo fadhido waxaan leeyahay inaan iraaho dadka muxibbiinta oo caashiqiinta ah oo bishaan oo kale isku yimaadiin inay cishqigooda ay caddeeyaan daraaddooda maxaa yeelay qoftu waxay jeceshahay way cabirtaa dareenay ku cabirtaa waxaa ka midaba dareenkan beriga aan anugana soo wada baa ka mida marka waxaan leenahay shahrigan waa shahrul axibba shahru rabiici mawsumul axibati wallaahi wahuwa ciidun lmusharaci baan leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا أهل صومال نحن نحبكم الحمد لله رب العالمين أهل الصومال يحبون الله ورسوله وبهذا السبب نحن نحبكم الحمد لله رب العالمين dunida maanta oo kale waxaa si weyn looga dabaaldegaa dhalashada nebigeena naxariista nugurkiisa ka ahaatee ayaga oo sidoo kale la qabto maanta oo kale waa maalin ku weyn caalamka islaamka waxaana dunida laga qabtaa isku soo baxyo ballaaran oo lagu hininayo dhalashada nebigeena naxariista nugurkiisa ahaatee cabshir xuseen maxamed cabshibaari SBTV magaalada muqdisho wejiga saddexaad ee wadahadallada Itoobiya iyo Soomaaliya ee Ankara ayaa fashilmay xilli xiisadda labada dhinac ka dhaxaysa meeshii ugu sareysay ee gaartay waxaa qodobkan eegaysa Umulkhayr Cabdi Axmed wejiga saddexaad ee wadahadallada Ankara ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo loo balansanaa 17 Sebteembar ayaa dib loo dhigay lamana oga sababta baaqashada shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo labada dal ay hawada isu marinayaan hadallo xanaf leh oo saameyn ku yeelan kara sii socoshaha wadaxaajoodka Ankara labada dal ayaa hore heshiis uga gaari waayay wejiga koowaad iyo wejiga labaad ee wadahadallada Ankara inkastoo dawladda Turkiga ay sheegtay inay jiraan isu soo dhawaansho labada dhinac ah laakiin Soomaaliya ayaa cadeysay inaysan ka tanaasuleynin in Itoobiya ay ka laabato heshiiska marinbiyoodka ay la gashay maamulka Somaliland maalmo ka hor wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inay Soomaaliya wada shaqayn la yeelan doonto jabhadaha gooni goosadka ee ka jira dalka Itoobiya haddii aysan Itoobiya ka laaban heshiiska xadgudubka ku ah qarannimada dalkeeda Itoobiya waxa ay dhankeeda walaac xooggan ka muujisay saameynta Masar ee Soomaaliya iyadoo ku eedeysay madaxda Soomaaliya inay cadawga Itoobiya la galeen iskaashi dhinaca difaaca Itoobiya waxa ay ku adkaysatay inay difaacayso heshiiska ay la gashay Somaliland si kastaba ahaatee waxaa laga cabsi qabaa inay burburaan wadahadallada uu Turki garwadeenka ka yahay taasoo kor u qaadi karta xiisadda labada dal dowladda Soomaaliya waxa ay hore uga hanjabtay inay qaadayso tallaabooyin waaweyn haddii Itoobiya ay ku sii socoto xadgudubka dhulkeeda Umulkhayr Cabdi TV-ga SB Muqdisho xiisad u dhaxaysa Puntland iyo BSF-ta maamulkaasi ayaa ka taagan gudaha magaalada Boosaaso xilli laga cabsi qabo in magaaladaasi dagaal culus oo labada dhinac u dhaxeeya uu ka qarxo waxaa qodob-wareedkan eegaya wariye Maxamed Axmed Soomane wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegaya in haatan ay ka sii dareyso xiisadda u dhaxaysa ciidamada BSF iyo maamulka Puntland ee ka taagan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi oo isku qabteen labada dhinac BSF ayaa mar kale xalay soo saartay digniin culus waxayna sii adkaysay digniintii hore ahayd in laga fogaado aagga garoonka Boosaaso sidoo kaleetana aysan ka soo degi karin diyaaradaha dulimaadka qoraalka taliska oo xalay la shaaciyay ayaa waxaa lagu sheegay in aan weli xal rasmi ah laga gaarin arrinta garoonka ayna u digayaan shacabka iyo shirkadaha dulimaadyada taliska BSF ayaa si gaar ah u gudigay diyaaradaha Dalo Airline iyo Ethiopia Airlines wuxuuna sheegay in shirkadii hogaasimi weysa amarkooda in iyadu ay qaadi doonto mas'uuliyadda wixii halkaasi ka dhaca khilaafka ugu weyn ayaa ka dhashay isticmaalka garoonka oo ay BSF
ay sheegtay in loo diiday ciidamadeeda iyo xitaa in laga dhoofiyo askar ka dhaawacatay waxayna Puntland ay ku eedeysay in garoonkay u beddeshay xero ciidan waxaan ugu digaynaa dhammaan shacabka ku dhow garoonka Boosaaso inay isaga fogaadaan garoonka diyaaradaha ee Boosaaso ma noqon doono goob si gaar ah ama cid gaar ah ay maamusho ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ciidamada BSF Puntland ayaa iyana maalin ka hor jawaab ka bixisay digniinta ciidanka BSF waxayna hoosta ka xariiqday in wax xaalad ah aysan jirin ama aysan ka taagnayn Boosaaso isla markaana ay tahay nabadgelyo waxaan rabnaa in shacabka magaalada ay ogaadaan inaysan jirin nabadgelyo xumo waxaan ugu digaynaa dadka nabadgelyo darada abuuraya in ay ka fogaadaan ayuu yiri gudoomiyaha maamulka gobolka Bari arrintan ayaa durba dhalisay xiisad xooggan oo laga dareemay Boosaaso ay horey ugu dagaalameen ciidamada BSF Puntland iyo kuwa taabacsan madaxtooyada maamulkaasi Maxamed Axmed Soomane SBTV Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba joojisay duulimaadyadii tagi jiray magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta joojisay duulimaadyada tagi jiray garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso halkaasi oo ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa maamulka taliska Saciid Cabdullaahi Dani iyo BSF maamulkaasi waxaana gabi ahaanba la joojiyay in garoonkaasi ay ka degaan diyaaradaha Daali Itoobiya wararka laga helayo magaalada Boosaaso ayaana tilmaamayay in hay'adda duulimaadyada rayidka Soomaaliya ay ku wargelisay Daali Itoobiya in xiisad ka dhaxaysa xukuumadda Puntland iyo ciidamada gaarka ee BSF maamulkaasi ay ka jirto magaalada Boosaaso sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha dhinaca duulimaadyada Puntland ayaa dhinaceeda diyaaradaha Daali Itoobiya ku wargelisay inaysan Garowe ka degi karin haddii ay qaataan amarka dowladda federaalka Soomaaliya xaaladda magaalada Boosaaso ayaa aad u kacsan iyadoo dadka magaaladaasi ay bilaabeen in guryahooda isaga barakacaan maadaama ay ka cabsi qabaan in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada BSF Puntland ee sida gaarka u tababaran iyo kuwa ka amar qaata Saciid Cabdullaahi Dani inay ku dagaalamaan gudaha magaalada Boosaaso taasi oo walwal xooggan ay ka muujinayaan shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Boosaaso xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta dib u howlgelisay xarunta bangiga dhiigga qaranka رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبدي برو دافر هولجلينتا حرونتا بنجيga dhiiga qaranka ayaa tilmaamay muhiimadda ay xaruntan u leedahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan in la helo dhiig ku filan oo lagu badbaadin karo nolosha dad badan oo u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah xarunta bangiga dhiiga ayaa mid casri ah oo laga hirgeliyay gudaha caasimadda isla markaana la dhigay mashiinadii ugu dambeeyay oo casri ah waxaana la filayaa inay kaalin weyn ka qaadato samata bixinta bukaanada u baahan dhiiga iyadoo gacan weyn ka geysan doonto yareynta helitaanka dhiig caafimaad qaba oo ku filan bukaanada la ildaran xanuunada kala duwan ama ku waxyeelooba qaraxyada ka dhaca gudaha caasimadda Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa dhinaca kala booqday isbitaalka Banaadir halkaasi oo uu kormeeray qaybta dhaqidda kaliyaha oo iyadana la dhigay qalab casri ah isla markaana si lacag la'aan ah bukaanada ugu adeegi doonta qalabka yaala maxaan ku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaala isbitaalka dhiiga waxay dhaqaatiirtu noo sheegeen inaan bariga Afrika laga helinba oo ay Soomaaliya kaliya hadda maanta ay yaalaan Soomaaliya oo dhan ma yaalo bariga Afrika ma yaalaan maxaan ku dhahaa laakiin maanta Soomaaliya waa laga helay oo waa centerkan ama markaskan ama bangigan dhiiga ee Soomaaliyeed ayuu yaalaa arrinta runtii aad iyo aadka aan uga mahadcelinayo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba markaska iyo guud ahaan dawladda iyo shacabka mamlakada Carabiga Sacuudiya waxa waaye waa in ay qalabeeyeen oo ay dhiseen centerkaas qiimaha badan maxaan ku dhahaa kaliya dhaqista oo aan hadda ku soo maray oo ku soo arkay dadka Soomaaliyeed ee loogu adeegayo dhibaatadii haysan jirtay iyo maanta sida dhibka yar ay tay u imaadaan ay weekii ugu yaraan 2-3 jeer ay u soo booqdaan loogu adeegayo dhib badan baa inaga haystay hawshaas dadkeenu si dhib yar ayay u dhiman jireen safarra la geli jiray kuwa kaliya laga soo bedeli jiray kuwa kaliya laga soo bedelo xataa markay waddanka soo noqdaan waxay u baahan yihiin center ama xarun takhasus u leh oo qalabki yaalo oo mar walba lagu baaro oo mar walba iskala socdaan heerkooda iyo nooca yihiin
ayadan lafteedu adeega loo filinaya ay ka mid tahay marka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar kaliya mar kaleba iyo kun jeerba markaskan qiimaha badan oo hawshaas fuliyay dowladda Itoobiya ayaa mar kale u gaftay madaxbannaanida Soomaaliya waxayna tilmaamtay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaliya ay ku kooban tahay gobolka Banaadir waxa warkan mar kale eegaya wariye Umul Khayr Cabdi Ahmed dowladda federaalka Itoobiya ayaa si adag ugu soo jawaabtay Soomaaliya gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi oo shalay ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xiisada u dhaxaysa labada dal Axmed Macalin Fiqi oo si gaar ah uga hadlay fargelinta Itoobiya ee arrimaha gudaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay fursad u haysato inay cilaaqaad la sameeyso jabhadaha ka soo horjeeda Itoobiya haddii ay sii socdaan fargelinta Addis Ababa annagu hadda burburka Itoobiya dooni mayno oo wax dan ah Soomaaliya geeska Afrika uma jirto laakiin haddii ay sii socdaan heshiisyada ay la galayaan kooxaha gooni-goosadka ah waa wadan oo furan inaan cilaaqaad la sameeyno jabhadaha gooni-goosadka Itoobiya ayuu hore u yiri wasiir Fiqi sidoo kale waxa uu sii raaciyay Djibouti ayaa laga siiyay degad leh kaabayaasha wadooyinka ahna meesha ugu dhow Itoobiya laakiin Itoobiya uma socoto halkaas oo waxa ay rabtaa dhaxalka jiilayaasha Soomaaliyeed ee soo socda intaasi kadib waxaa soo jawaabay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nibiyu Tesla oo gofweyn ku kacay waxa uu ugu horeen wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka Fiqi isagoo intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya aysan ka talin karin meel dhaafsiisan magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay waxa kale uu liiday qarannimada Soomaaliya uu ku tilmaamay mid daciif ah arintan oo ugu sii daraysa xiisada haatan u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa waxa wax lagu qoslaa in wakiilada shabaab oo iska dhigaya mas'uuliyiin dawladeed aanan ka talin karin meel dhaafsiisan gobolka Banaadir waa flagaadadooda iyagoo hoos jooga qarannimo daciif ah oo ay gadaal ka riixayaan nidaam dawladnimo dhexe oo qabiil ku salaysan dad nooca oo kale waxa ay wiiqayaan horumarka ay sanadahan badan soo gaaraysa Soomaaliya iyagoo horseedi kara kala qobqob ayuu yiri Nibiyu Tesla talaabooyinkan ay qaadeen labada dhinac ayaa ugu sii daraysa xiisadan haatan taagan ee ka dhalatay heshiiska badda ee uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy la galay maamulka Somaliland Umul Khayr Cabdi TV-ga SB Muqdisho dagaal lagu dilay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka dhacay gobolka Jubbada Hoose sida qodoboreedkan ay ku eegayso wariye Faadumo Axmed Maxamuud warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo aroornimadii hore ee saakay ka dhacay deegaanka Janay Cabdalle ee gobolka Jubbada Hoose dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga deegaanka Janay Cabdalle ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland qoraal ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in weerarka saakay khasaare xoogan lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab isla markaana looga dilay ilaa 5 xubnood meedadka 5 ka mid ah Al-Shabaab damacsaneed inay dadka rayidka ah dhibaateeyaan ay isaga carareen kooxda waxaana wali socda baacsiga Al-Shabaab oo waayadan dhibanayaal u ah halyeeyada xooga dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda federaalka deegaanka Janay Cabdalle ayaa ka mid ah deegaanada muhiimka ah ee laga ilaaliyo amniga magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland waxaana xusid mudan in deegaankan uu ka mid yahay deegaanadii ugu dambeeyay ee laga xureeyay Al-Shabaab gudahaan daawadayaal intaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dalkii dibadda ka daawanayseen muqalbahiya SB TV